taagnaan jiray inuu ciyaaraha maaragtay xitaa wasaarad maalgelisa ama mushahar siisa ama dhaqaale ku siisa ma jirin waxaan dad isxilqaamuun bay ahaayeen markaa waa ciyaartaas xitaa dagaal baa ka dhacay laba ciyaartooy baa isku dilay oo casaan ka qaatay jibriil iyo cali nooqo annaga noo ciyaaray allah yarxame cali nooqo uu dhintay imka uu dhintay cali nooqo jibriil sambaloshan uu joogaa markaa labada nin bay isdilay jibriil sanaacan ciidankii xamar ka wada yimid horseed buu ciyaar jiray jibriil juniorska horseed buu ahaa ismaan laba qori isna horseed buu ahaa juniorskooda markaa nimankaasay ahayn nimankaan wada ciyaarinay markaa aduu fact ciyaartaa waxba kale aduu kolley cabdiraxmaan dhagaweyne wacdaro ku mujay ciyaartaa gool dhaliyay wanaagsan xitaa dabaaldeg badan wanaagsan buu sameeyo celebration wanaagsan buu sameeyey markaa aduu intaasan kasii xasuusta ciyaarta kolley aduu ciyaar aad u wanaagsan bay siriga waxay Omar calamadaha koobaad wuxuu ahaa Allah u naxariistay daahir oday calamadaha labaadna wuxuu Allah u naxariistay xukuntoor labada calamale ay kala hayeen waxay ku dhamaatay 3-2 saad sheegtay laba waxa dhaliyay Cabdiraxmaan dhagaweyne oo noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee shabakka gool ku yaala Soomaaliland gool ka dhaliyay noqday goolka saddexaadna Maxamed Yuusuf Libaax ayaa u dhaliyay Guriyasamo labada gool ee unqaday la timi gool kamid ah waxa dhaliyay penalty waana penalty ugu horeeyay noqonaya awil Ibrahim Ismaaciil roodi Mareykan ku nool yahay sorry saacilo ay dhaliyay penalty-ga oo difaacaha oo number 4 ka ciyaariyay goolka labaadna waxa dhaliyay awil Ibrahim Ismaaciil badri 3-2 ay ku dhamaatay tartanku sii socday sida kuma joogsan xamaasadda iyo xiisiisu sii socday waxa dhici jirtay ciyaaraha qaar inaad ku badisaan 12 gool waayo kooxaha meesha maray qaar kood baa iska hafayo ka caafimaadka iyo jamhuuriya iyo qaar ayaa ciyaari jiray ciyaartoygii aad wada safan jirteen kooxdiina markaa Guriyasamo ama line-up-ka ha ahaadaan ama dhammaan loo kala isku wada daro yaad ka sii xasuusan tahay bismillaahi raxmaani raxiim wallaahi waan ka xasuusanay dad badan waxaan ka xasuustaa weli axmed xaawe oo hadda ninka halyeyga ee qabanqaabiyaha kabta goolaha waxaan kow xilligaa waxa gool noo hanin la yiraahdo Cabdi Awliya magac noocaas aad u naalis buu lahaa wuu jooga hadda xagga linka biliska meelahaas uu nagay mid aad in fact in badan la musu joogin oo goolo kale oo aan sheegi doono insha Allah ayaa markii dambe loo qabtay goolo wuxuu ninkaas uu ahaa difaaca waxa joogay aniga iyo weli axmed xaawe الله مساعدك كلي محمد حاشي لو نجري محمد حاشي أو صدق يا صوب بدنا كراعو سنافر تقابل تري sometimes بالحلقة لباح جابوش الله مساعد محمد عبد الرحمن دقويري ياسين عمر أيوة شبعان ويرك عيال تري أدو رك بدن بيهاي بلقى أدو كل إنك استمر كده بيس بدلوا ده رك بدك لك صوب بيرن قاعد لا يكتجين لكن إيد حسن عيال الله إله ونحرسون حيشنا كورابية مركان نمر مع فولجو ayaan ka sii xasuustaa intii bariga kooxdeeda ahayd leen ka ahayd marka waa soo ciyaarteen inta badan kooxaha wad ka badiseen ma xasuusan karo koox kaliya xitaa bareejo idin la gashay dadka marka ciyaaraha xiiseeya markay arkaan isku xidhkiin iyo saac ciyaaraysan waxa lagu xaman jiray kooxda Guriyasamo inay naadi ahaayeen intii xuntiga la joogay oo abakor كلمة حق غير كلمة ها يجوا أو مركها كروح أو إسوته أو بقر كل عيار تري أو ترتني حبشيد عيار ترين تاسي مركها أي سبب واحد إن اللودين وايو مركها أي بقر كروح أي شوكتي مياد كسر جادي ما يعني تا كم سو جارين waxaan ku maqnaanu xamarwaan istaan sheekada hore ku soo sheegan guushan joogay marka intii 3 sano ee qaxootiga la joogay ayay iyagu halka ku ciyaar jireen bakor anu laakiin markii wadanka la soo galay ayuun baan hargeysay mid marka kooxda kuma jirna bakor ku ciyaar jirtay waayahay tartankii si xarga la qaadeen wala dhibco badan baa ku qaadeen kooxaha ugu adkaa ee aad waajahdeen onkod iftanood ka sheekaysay oo marka dambe onkod loo bixin doono iyo Guriyasamo oo marka dambe aan Nasr baa la bixi doontaan Sheekh Madaro marka olol watay iyo Cabdi Nuur iyo Sham ama Batroolka oo ay Xuseen Maxamed Xoore iyo Maane iyo Cabdi Xaaji Allah naxariista Allah xuseen Muxtar Xamarow niman ay ka ciyaareen ayaa ugu adkaa koobkii qaade qalab badan oo sport wadanka mu ool koobka leedin gudoonsiyay marka horyaalkii ugu horeeyay ee Soomaaliland noqotaan ama Hargeysa ayn ku eeka بسم الله الرحمن الرحيم خضروا
horta wax koob la yidhaa iyo wax kaloo ama dee jaayisad ama wax markaa ama biladoo la siiyay habeenaatay ma jirin laakiin markaa waxna la siiyey wax alla wixii ugu qaalisanaa waddanka yaalay oo calankii Soomaaliland weliba calankii kan ka horeeyay ee cadaanka dhexda akhtarka gobolada akhtarka ahaa ayuu ahaa waxaana la guddoonsiiyey madaxweyne ku-xigeenkii waddanka markaa xasan ciise jaamac ayaa la guddoonsiiyey khadarow koob ahaan calankaasna loo siiyey markaan koobkii qaadnay marka waxa koob la yiraahdo iyo waxaasi ma jirin waa run oo Allahu naxariistay madaxweynaha xilligaas Cabdiraxmaan Cali wuxuu ku magacaa Faransiiska marka Xasan baa joogay oo idin guddoonsiiyey calanka labadii koob ku xigay oo aan waqti badan ba u dhaxaynin dadku xiiso badan bay ciyaaraha u qabeen labada koob ba idinka qaaday oo saddexda tartan cid idin kula tartantay isku xigay ma jirin kooxuna kulli wasi adkaadeen oo dad badan baa xamarkiima kooxa soo galay idinka al-Nasr marka al-Nasr baad ku bilowdeen magaca al-Nasr aad ku bilowdeen waxa idin iman jiray ciyaartay qiimada khaliijka oo shabcaan oo idin yimid farxaan baa idin yimid xasan keesa idin yimid mustafa musadala baa idin yimid nin kasta oo khaliijka ka yimaado oo ama imaaraadka ama qatar oo aad looga man jiray wuxuu iman jiray al-Nasr may dhici jirin naasir xareedun baa u ciyaaray onkod inta kale al-Nasr baa u ciyaari jireen marka xiriirka ka dhaxeeyay al-Nasr iyo dhalinyarta ka timaada khaliijku mid caynkay u ahaa okay taas way jirtaa khadarow xiriirka ka dhaxeeyay gadar oo markaa ay u badnaayeen dhalinyarada Hargeysa ma jirto waliba dadkii askartii waxa nooc ahaa iyo naadigeyga waxa ahaa waxa Weli Axmed Xaawe waayo waliba reer gadar buu ahaa oo 87 iyo 86 adu meelaha ayuu Hargeysa ka tagay oo walaalkii gadar jooga ayuu soo saaray inuu askafiis marka waliba joogi jiray gadar isaga markii dambe adu la joogay Abakor sagaashamaadkii intaan waddanka la soo gelin ayuu gadar skiimidu ku soo noqday waddanka iyo halka qaxootiyada marka xiriirkayga naadigayga al-Nasr iyo kooxaha ama dhalinyarada reer khaliij ee gadar ka imanaya waxa sabab ah Weli Axmed Xaawe waa isaga xitaa diriiskayga marka la eego wuxuu gadar baan loo keenay jiray kubadaha gadar bay nooga iman jireen kabaha iyo everything wax kasto markaan ku ciyaarnaa xaqiiq naadigaygu waxay nooga iman jireen dooxa ay inta badan nooga iman jireen xildhibaan Weli Axmed Xaawe sabab ah sheekada ama arrinka markay saddex aad koob qaadeen horyaalii laba koob kolley kooxi kale soo adkaadeen waxa dhacday inamadii niyad jab ku dhacay al-Nasr dadku badankoodu way kala tageen qaar naadiyo kala galay qaar kubadaba ka nasta al-Qamar koox loo oran jiray oo wadaado bandhiga samaysatay saddex laacib oo halbowlaaba u galay gaabuush iyo libaax iyo Cabdiraxmaan al-Nasr bay u galeen waxa Mustafana uu ku jiray waxay u tageen taharo sii jooga oo istoonkood ciyaar jiray waxa yimid Cabdi Fiid hore u ahaa al-Qamar ha isagoo koox ka soo wareegay Jibriil Sambaloosh wuxuu ka soo wareegay onkod Axmed Ali adiga iyo Cabdiqani Kalluun oo ciyaartay aad soo saarteen waxa timaadeen onkod ha Yaasiin Cumar Yare wuxuu tagay batrool ku tagay onkod in aad Axmedow aad timaado markaas sidee bay oo tartan badan ka dhaxeeyay sidee bay muxuu ahay ugu suurta gashay horta khadar waa runoo kooxda qule ficilka ku naga dhaxeeyay ama dee aanu ishaynay ama sheekadu derbi ahaan jirtay ama el clasico waxa nimanka yiraahdaan ay ahaan jirtay anigii onkod baan ahay koob kasta oo uu qaadno nimanka naga hor yimaadeen dhibaayaga ahaayeen ama kaalinta labaadba soo gala ama dee haddaan qaad weliga qaaday marka sababta aan kooxda aanu hayn aan u tagay horta waxa ahayd kooxaanu aad ciyaartooygeeda isugu dhownahay ama marka la eego deegaan ahaan ama daan ahaanba aanu si yar xignay oo si yar badnayn in fact runtii iyaga anaga codsan aanu imaadaanu markay arkeen kooxdeedii yar ku yar dhaceen oo ay kala yar biqbiqday iyaga iga codsadeen u imaado oo u ciyaaro iyaga marka saasaan ugu yimid marka yarkan Cabdiqani Axmed Yare ama Cabdiqani Kalluun loo oran jiray oo isla runtii aad difaac iyo weerar bidixii midig labadaba ha isna waxay damceen u yeedhaan marka Yaasiin Cumar Yare ninkii loo oran jiray oo batroolka u tagay ayaa damceen uu Cabdiqani ka haysto dabeeto aniga kaga awood bato Cabdiqani saasan u kudu keenay marka uu kudban soo ugu ciyaarnaa aniga Cabdiqani sanadka tartanka waxa qaaday al-Qamar baa qaaday onkadna toogay galeen kadib ciyaarihii dambe bilaamay al-Nasr dib ay isugu soo noqotay
waxaa gasheen tababaro adag horyaalkii baa bilaabmay horyaalkii waxaa nasiib u heshay inay u faqaado 94kii laba tarkoobo degdega oo midna loo dhigay cabdilaahi daahir dhidar allahu naxariiste oo uu dhaba dhigay iyo koob ka horeeyo aad isugu dhawaanay onkod ayaa qaaday taariikhda markii halkaa ka nimaadno waxaa bilaabmay dagaalo sokeeye markii dambe oo runtii waddankeena ka dhacay alxamdulilah laga soo kabtay markiiba intaa kadib kubaddiis halkii ma ka sii waday mise waad joojisay horta may khadarow dagaalkaa sokeeye markii uu dhacay ayaa horta igu dumisay kubad professional ama aan koox u ciyaaro oon garoonka ka soo muuqdo wakhtigaasa igu dambeysay laakiin kubaddii iyo ciyaartii dee kamaan bixinoo marka intii dambe waxaaban ciyaaraya dee caafimaad ahaan iyo laakiin kubad aan koox u ciyaaro oon garoonka ka soo muuqdo berigaasa igu dumisay 94kii axmed bosishanka aad ka ciyaarto sida horeba ugu dhawaajiyay waxa weeye number 2 buu ahaa number 2ga niman iyaguna fiicnaa baa jiray waxaa ka mid ah Siciid Daanyaro oo onkod u ciyaari jiray oo markii dambena u wareegay batroolka waxaa ka mid ah Ganto oo u ciyaari jiray Ufo ama kooxda loo jeedo Sheekh Madar waa Cabdilla Jaxsiya Tiriib buu ahaa waxaa ka mid ah Faadhaga Qol oo isna adigu waxaad ahayd number 2 kaliya sida ay imika u ciyaaraan beriga u ciyaari jiray weerarka waxaad ka caawin jirtay Yaasiin Cumar Yare oo 7 ku ahaa aad u dheerin jiray ayaad ka barciyaa jirtay arintaasi ma adigu ba yani wad caalamka runtii iyo wadankeena kama jirin maadun bay kugu dhalatay mise waxaad hore u soo aragtay buha wallahi khadar arrinka sheegayso horta imika waa runoo dee sidaynu ciyaaraha u aragnay baalka labada baal ee tiriga ama tuugu iyagaaba weerarka ka kubada badan oo waad sad aragtay dee nimankan dee caalamka ciyaara baal difaaca baalka imika inta badan weerar bisu haystaaba oo kubadda inuu soo karooso inuu soo galo ayuu tahay taasi waqtigeennii hore may jirin oo ninka difaaca ama baalkii halkiisaas u buuquturnaan jiray oo dhiida khadka dhexe ama soo ilaashado runtii anigu inaan dhaqaaqoon hore u dhaafo oo ilaa koonaha soo karooso kubadda oo aan caawiyo weerarka cidigumay dhalin kamanaan adag saad waqtiga adugeed may jirin sayimka ciyaaraha loo daawado caalamka tababar la siiyaan lagu siiyana muu jirin khadar runtii wax aniga ilaahay ugu alhumeeyeen buu ahaa inaan dee maskaxdayda fikradeedun baa noqotay inaan anigu kubaddeeda hore usii wado oon ilaa weerarka gaalo laakiin cid markaa igu taageertay ama tustay ama casharkaa ii dhigto xitaa infact berigaan joogay muqdisho aan joogay naadiga u ciyaarayay runtii inkastoo beriga ka ciyaarayay lambar 4 oo 4 aan ahaa oo dhexaan ahaa difaac dambe aan ahaa isagu oonan baal ahayn haddana dee cashar ahaan umaan soo qaadan inaan baalkaa ka galo anoo difaaca oon weerarka caawiyo aragtina kuma anagoo caalam iyo dee cid kaloo ciyaarsa kama anaga anugu baa wax ilaahay markaa anu fikirkaygu baa hayd inaan saa wax loogu socdo marka inta laga yimaado waxyaabaha aan xasuusan karo imika waxa laga joogaa almost 30 sano aan Axmed marka aan soo xusuusto ama aan ka sheekay waxa kamid ah karooska marka kubadda koonaha soo laadayso ama ciyaarta faawlimaado oo kale kubadda madaxa lagu boobayo karooskaagu aad buu uga tilmaanaa ciyaartoyga kale oo dhan oo xitaa waad kaga fiican ciyaartoyga kale inaad karooskaagu caynka ahaado ma waxaad tababar ku qaatay baa sidoo kale mise wax yani hibo ilaahay kuu dhaliyay ayuun buu ahaa may khadar wallahi wax tababar lay siiyey wax kale ma helo waxaadun dee hibo ilaahay siiyey saad u sheegtay marka waxaan xasuustaa ciyaartoyga qaar weerarkii marka aan kubadda koonaha u soo laadayo ama intaan galo aan saa u soo celinayo kubadda waxay odhan jireen nimanka kale weerarka ah kooxdeedii kubadday noo soo laadaan waanu ka baqannaa kubaddaa inaan ku raaxaysannaa runtii markaa karoos yaro macaan oo dee halkoogana yimaada qabowna ayaynu soo laadi jiray runtii iyadoo wakhtigu kooban yahay oo salaaddii maqrib la eedaamay waxaan doonayaa inaan hal ciyaartoy ku weydiiyo nin difaaca baad ahayd inta badan weerar baad ilaashinaysay ninkii kuugu warwarka badnaa ee aad ku xisaabtami jirtay weeraryahanka kumuha khadarow horta rag badan way jireen dee markuu ninka difaaci kubadda dee garoonka ku jiro kolley weerar fara badan oo dee uu ka cabsi qabo ama uu iska ilaalinaya way jiraan laakiin nin baa dee argagax nagu ahaa anaga runtii oo noo tilmaannaa ninkaasina nin kalmeena wuxuu ahaa jibriil sanbalooshuu ahaa jibriil buu ahaa sababtuna wuxuu ahaa nin aad u dheereeya labada lugood ka laada kubadda xirfad iyo tiknikal badanna aad u lahaa markaa haddii uu kubadda mar kaa tuurto uu jaanis kaa helo si aad ku gaadhaa
way adkaan jirtay waa inaad daba gurguurato inood markaa ama aad faawul ku gasho ama si kale laakiin hadduu kaa jeesto goolkana waa shabag uu ruxmayaaba uu laaday already waa labada ligoodna uu aad ugu ciyaari jiray nin dheereen aad buha markaa ninkaa jirisa bulshaa ninkan aad ugu cabsan jiray koox ahaan marka aad idinkoo kooxdan ugu fiicneed haddana kooxda diyaargarowgiina markaad ka hor imanaysa aad ku xisaabtami jirteen kooxdabaheed horta kooxaha ugu nacelin jiray ugu badnaa aduu afar kooxood beer aduu ugu adadkaa horyaalladeeda inta badan markaa kooxda marka laga reebo 3 kooxood baan aduu yar waa ufo iyo onkod iyo petrolka kooxdii la oran jiray laakiin kooxda dee noogu adkeedee mar kastaan isla googii jirnay naadiga onkod buha oo ciyaartina il classica la oran jiray oo aad baa loo eegi jiray warba labadii kooxood ee adkaa baa la oran jiray hadday noqoto koob yaro kaloo la qabanayo final laga isugu jirnay horyaalka hadday noqoto iyaga dhibc ahaan lagu soo xigi jiray markaa kooxda onkod beed kooxda qole inta badan aan iscelin jirnay ama aanu ka baqan jirnay axmed cali faarax maday ciyaartoygii hore ee kooxda sancada muqdisho sidoo kale u soo ciyaaray kooxaha heerka koobaad ee somalilan sida kooxdii guryasamo annasar aad baad u mahadsan tahay daawadayaal iyadoo wakhtigu kooban yahay haddii ilaaha awoodali qadaro isugu iman doono barnaamij la mida kuwan oo kale inta ka horraysa waa aniga iyo saaxiibkay maday saaxiibkay jamaal jante sawirqaadahayga maxamed hemajes iyo dhammaan tiimka agro football show idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu